kula wacan oo wanaagsan idin ahaantiin baa khiyaarta hawada nagala xidhiidhay waa mar kale iyo barnaamijkeena faaqidaada wararka qodobada aad wararkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah xogaga dagaalyahanada ee dowladda Itoobiya dagaalka xooggan kula jira waa kuwa ka dhaqaaqa gobolka Oromiya ayaa soo saaray war murtiyeed ay kula dagaalamayaan xogaga Axmaarada ee Faano taliyaha guud ee ciidamada OWL Jalmaro oo warbaahinta Oromiya waraysi siiyay ayaa sheegay in aan la joogin waqtigii Axmaaradu ay isku daynayd inay Addis Ababa dib u qabsato gabi ahaan Axmaarada gobolkooda dhacay si wada jir ahna ay ula dagaalami doonaan qoomiyadda Oromada xogaga doonaya inay gabi ahaan bakarkaarka weydaariyaan ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed taliyaha guud ee militariga dalka Itoobiya Burhanu Jula oo ku sugan magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya ayaa la yeeshay kulan dhanka amniga looga hadlayay taliyaha dalka Kenya hogaamiye militariga dalkaasi Itoobiya Kenya ayaa doonaya inay iskaashi amni oo ballaaran ay yeeshaan iyadoo halkan ay ku sugan yihiin saraakiil aad u tiro badan oo ciidamada dalka Itoobiya qodobada kale ee wararkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah shacabka SSC ayaa ka hadlay duulaanka Itoobiya ay ku doonayso inay gudaha u gasho maamulkaasi ama gabi ahaanba deegaanadii laga xoreeyay ciidamada maamulka Somaliland in dib gacanta lagu galiyo Somaliland militariga dalka Itoobiya oo buux dhaafiyay Buuhoodle ama deegaanadaasi taangida aadka u culus soo dhoobay ayay warbaahintu tabinaysaa inay ciidamadaasi ay doonayaan inay gudaha u galaan deegaanada SSC ama ay gaaraan laas caanada xarunta maamulkaasi sidoo kale golaha wasiirada ee maamulka Somaliland ayaa xogaga ugu tunka weyn gabi ahaanba ay qaadaceen rabitaanka Itoobiya ee Saylac iyo Lugayo iyadoo golaha wasiirada ee maamulkaasi ay kala jabeen SSC iyo Somaliland ayaa doonaya inay isdhaafsadaan maxaabiista xaaladoodu aadka u liitaan iyadoo marka ka dambeysay xaaladdu is soo tarayso qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku eegaynaa barnaamijka waxay kala qayb galayaan saaxiibkay gooni oo soo dhawow warkeena ayaanu guda galaynaa xaaladdu cirka ay isku sii shareeraysa dhanka iyo Addis Ababa ayaanaadina waxaa jira taliyaha guud ee ciidamada OWL ee Oromiya ama jamhadda xoreynta Oromiya ayaa warbaahinta Oromiya waraysi waxa uu sheegay in ayna marnana macquul ahayn ama suurtagali karinba si kasto ay ahaato Axmaar awood u yeelato inay maanta Axmaar ay xukunka qabsato ama jamhadda Faana ay sabab yimaadaan labadan jamhadood waayadu ugu dambeysay dawladaha Mareykanka waxay ugu baaqayeen in si wada jiro kaliya dawladda loola dagaalami karo xukunkana lagu ridi karo jamhadahana la mideeyo sidana maamulka Abiy lagu rido Itoobiya dawladooda ay loo dhisay laakiin OWL way hadashay waxay sheegeen inaan ayaga Faana dab kala qaadanin suurtagal ah inay mar hata xukun ku heshiyaan Axmaarana in loo baahan in Itoobiya dhan ay la dagaasho ayagoo xataa dawladda Itoobiya dagaalka kula jirto uu ugu hambaliyay in ciidamada dawladda Itoobiya ay la dagaalamayaan biir niman xaq jir ah oo Itoobiyaanimada ka soo horjeeda oo kuwa Axmaarada colaada inta leeg ee taliyuhu uu sheegay wuxuu yiri annaga hadaan qoomiyad Oromo nahay hadaan Itoobiya ana xukun kana haysano ana ku si xukumin ama wadada ana haysanin marnana macquul ma inay Axmaar ku seetin ila wareed hadii kale Itoobiya wala kala dirbiiri wuxuu yiri dawladda Itoobiya mowqif kale ka sameeyay waxa ay yiri la dagaalanka Faana biire annagoo dawladda rabin oo anagu dagaal kula jiro ya hadan wuxuu yiri waan ugu hambalyeeyna dagaalka gobolka Axmaarada dawladda ka wado ma la dhigi kara gooni hadalka ka soo yeedhay taliyaha guud ee jamhadda Oromada in uu yahay mid Itoobiya dab ku sishadaya aad iyo aad shido markaas oo fiirsada hadalkaasi waa hadal qabiil gaar ah macnaha muujinayo inuu ninkan taliye ciidan ahayn ay muujinaysaa oo Itoobiya u dhaxeeyo taas waxay ka dhigan tahay marka inuu wax xaglinayo beesha uu kasoo jeedo ama qolooyinka Oromada asagoo ka dhashay inuu wax xaglinayo dhahayo in Amxaaras ma soo galno Oromaduna in la dagaalamaan taas marka waxay ka dhigaysaa in dhibaato badan iyo dagaal ku sii kululaado xaalad sii xumaato Amxaarada iyo Oromada si kala fogaadaan dagaalka Itoobiya cirka uu sii galo Abiy Ahmed wuxuu doonayaa iyadoo Itoobiya gubanayso oo dhan walba ay ka horceyso inuu markaas ummadda Soomaaliyeed iyo dadka kale uu sheego inuu badooda dhulkooda qaadanayo taas oo la yaab caalamka ku noqotay marka dagaaladan in Oromada iyo Amxaarada si kala fogaadaan si dagaalamaan Tigreegana hadhow dagaalka ku soo biiri doonaan maadaama Abiy Ahmed balamihii uu la galay uga baxay waxay noqon kartaa in dagaal weyn oo halkaas ka socdo marka Abiy Ahmed waxa noqonaa Oromadiisa iyo in la isku jabsado oo Amxaarada iyo Tigreega marka dambe ay markaas awoodooda muujiyaan maadaama ay laba qolo aad u dagaalanto Oromaduna ay tahay qolooyin aad u fara badan laakiin
awood iyo dagaal iyo tiro aan lahayn oo aan isku filnayn marka dagaal qaraar soo socdo ninkan taliyaha ciidankana horumar uma soo wada Ethiopia wuxuu soo wadaa god ay ku sii ridaya waa ninka Abiy Ahmed ka dhaciyay in dekadaha Seylac iyo Lughaya la qaato ma gooni way kala yihiin meesha waa laba taliye mid waa taliyaha guud ee militariga dalka Ethiopia waa ninka Kenya ku sugan halkaas kula kulmay taliska militariga dalka Kenya ka qodobka way noo soo socdaan ninkan dawladda Ethiopia ugu hambalyeynaya inay la dagaalamayso jabhadda Axmaarada waa ninka taliyaha ciidamada Oromada ee mucaaradka oo wala jabhadda xoreynta Oromiya waa Jaal Maro wala ninkaasi waxa uu leeyahay waa in nimankaasi xididada loo siiyo Axmaarada ee mucaaradka basna waa mucaarad dagaal ku jira ciidamadiisu aad bay u tiribeen waa ciidamada mucaaradka ee Oromada marka qowmiyadda Oromadu barnaamijka ka simantaa jirta xukunka haysa ee Abiy uu hogaaminayo iyo tan maartay mucaaradka doorka ku jirta jamaacada baa in ayagu dalka Ethiopia haystaan hadii la hayn waayo in la kala fasaxo laakiin marka ay Axmaar gacanta u galeen marka ma la isdhihi karaa labadan jamhadood hadii la calaba xataa Abiy xukunkiisa u dhaco labadan jamhadood Ethiopia burburinay ku dagaalami doonaan way burburinayaan oo soo dagaalamaya sababtoo ah jabhadan Ola waxay rabtaa inay xukunka qabsato Abiy meesha ka baxo qoldan kale Amxaarada ay waxay rabaan inay xukunka qabsadaan marka nacayb waxa jira u dhaxeeya Oromada iyo Amxaarada oo qolo walba leedahay si qoladan ku haysata meesha qolada Amxaarada maadaama qoladii Migista oo ka dhashay tahay xukunka ayaga asal rabo nimankan Oromada waxay leeyihiin waan la dulmiyay dhulkeeni iyo Addis Ababa anaga lahayn email kale far badan ayaa markaas umada loo dhaxeysiyay anagana xaqeena la doodsiiyay xil fiicanna kama hel marka Ola ayda si gooni u dagaalamayso dagaal marka laba geesooda meesha ka jiro marna Ola ay maxaadaas dagaalay marna waxay la dagaashanayeen dawladda Ethiopia marka dagaalkaasi labada dhinac dhibaato ay keeni kara Amxaarada Oromada si kala fogeyn kara Oromada iyo laba waji leh ay waxay rabtaa inay la dagaalanto marna dawladda iska dhigto marna Ola iska dhigto qoladan kale Amxaarada waxay leeyihiin labadaba dhagtaan dhiig u darayna wadankan waa qabsanayna marka Amxaarada waa qolada labaad ee Ethiopia ku soo xigto tirada markii la yiraahdo laga reebo Oromada marka ma sahlano dagaal weyn ayaa dhici karo Amxaarada Oromaduna si kala fogaanayaan marka dambayso gaar ahaan Ola waxay leedahay anaga Addis Ababa kaga dhow kaga xaq leh ka soo jeedno halkii ay Amxaara qabsan lahayd marka waxaan dhici karnaa waxaan dhici karnaa dagaalka Amxaarada iyo Oromada wala sugi kara Ola iyo Fana meesha gaaraan ayaan arki doonaa aad baad ma santahay gooni u dhanka iyo waxaan aadaynaa buuhoodle dadka deegaanka oo warbaahinta la hadlay xaalad adag ay ka sheegan halkaas waxay dhaheen ciidamada Ethiopia waxay soo buuxdhaafiyeen xuduudka xoguna waxay sheegeen dad wareystay saraakiil kamid ah yiri meesha u socdaan wax ka weydiyo dadka deegaanka in ay sheegeen deegaanada dhulka SSC ah inay u socdaan oo aad markaa la saanood lama sheegin laakiin deegaanada kamid ah deegaanada SSC ay sheegeen baa la yiri inay fadhiisimo ka sameeysan doonaan ma laga yaabaa SSC iyo inay dagaalamaan ciidamada militariga dalka Ethiopia maadaama Ethiopia ay xiriir wanaagsan la leedahay maamulka Somaliland horta dhaqaaq culus ka jiro gobolada Cayn iyo Buuhoodle iyo dhulkaas waxaan leeyahay dagaal laba afle ayaa ka soo socdo dadka qaar waxay leeyihiin Oromo iyo Ethiopian isla socdo oo qulqulaya Buuhoodle soo socdo waxayna caawin doonaa ciidamada Somaliland kuwa Somaliland waxay isku diyaariyeen dhankan og ayana dagaal inay ka bilaabaan arintaasi suuq ay ku jirtaa teeda kale garaade isii qayb kamid ah hadla waxay sheegeen in Somaliland ay dagaal soo wado xerada darar weyn oo u dhow Cilafweyn waxa lagu diyaariyay 3,000 oo ciidan ah oo tababar dhameystay ayagana la soo diray oo ku soo wajahan dhankan Qorlugud iyo Buuhoodle oo dagaal inay ka soo galaan laga yaabo marka waxa dareemi kartaa in Ethiopiankii oo dawada ka riixayo nimanka Somaliland ay leedahay xuduudkeeni ay soo xirinayo cad la